bismillah waxaan doonayaa inaan sharaxo qaybta barjeska ama alaabaha aad soo gadatid qaabka loo soo geliyo qaabka loo fiiriyo hadii barjes soo gelinayso waxay maanaysaa barjeses hadii barjes cusub aad gelinayso waxaa leedahay add barjes hadii aad mid kuugu jiray fiirinayso waxaa leedahay list barjes marka waxaan leenahay add barjes waxaan soo gelinaynaa alaab cusub add barjes haddaan ku dhufto wuxuu soo saaraya halkan supplierka haddii aan rabo magaciisa inaan qoro oo hore igu jiray magaciisa un baan qorayaa safari general oo kale cafwan safari ma rabo altoba oo kale hadduusan kuugu jirin halkan ayaa kaga soo daraysa waxaa leedahay add hadduu shakhsi yahay iyo hadduu ganacsi yahay hadduu shakhsi yahay oo kale waxyaabaha waajibka aadan ka tegi karin waxaa ka mid ah xidigtaasa dul saaran tusaale magaca kale kama tegi kartid kan waa ka tegi kartaa kan waa ka tegi kartaa laakiin numberka kama tegi kartid ma garanaysa supplierka hadduu ganacsi yahayna waa la mid magaca un baad qoraysaa halkan waxaa ku qoraysa mobile numberkiisa halkan iyadana ma qoraysid contact ID-ga sideeda uga tegaysaa tusaalahaan altoba general bay inoogu jirtaa halkan waxaan gashanaynaa reference numberkii ama boonadii waxa la yidhaahdo alaabteena loogu keenay alaabta waqtigiina loo keenay waan dooranaynaa barjes date oo ah 21 bisha oo kale halkan waxaan dooranaynaa laba location haddii aad isticmaashid oo kale farmasho 1 iyo farmasho 2 oo kale waxa weeye waad kala dooranaysaa midka maaragtay daawadu ay timid tusaale farmasho 1 oo kale halkan haddii lacagtu deyn tahay oo kale waxa weeye waqtina lagu qabtay baad halkan ka soo gelinaysaa haddii bil lagu qabtay ama 2 bilood lagu qabtay halkaan month dooranaysaa kadib waxaa qoraysaa inta bilood lagu qabtay haddii maalmo lagu qabtayna days baa qoraysaa inta maalmood lagu qabtay ayaad gelinaysaa tusaale 20 maalmood iyo wixii lamid ah marka inaga cash bay inoo tahay tani marka inta uga tagtid halkaan ayaad imaanaysaa productigii baad gelinaysaa halkaan tusaale ahaan productiga haddii hore kuugu jiray magaciisa baa qoraysaa aspirin baan qorayaa oo kale 300 ml saa ujeedid hore buu igu jiray aspirin kalaan qorayaa nooc kale ah 20 ml marka halkaan un baad ku qoraysaa daawada kuugu jirtay macnaha productiga hore kuugu jiray haddii aysan kuugu jirinna waxa weeye halkaan ayaad kasoo gelinaysaa add new product haddii aad dhahdid wuxuu ku keenayaa khaanadii laga gelgelinayay sida caadiga ahayd markaa gelgelisid safe aad dhahaysaa waa sidii caadiga hore usoo aragnay kadib halkaan ayuu kaaga soo baxayaa markaad kaaga soo baxagaan halkaan ayaad tirada gelinaysaa soo gadatay daawo kasta intaa kasoo gadatay tan oo kale waxaan kasoo gatay 100 xabo tan waxaan kasoo gatay 150 xabo markuu ii geliyo mid walba intaan kasoo gatay geeskan ayaad imaanaysa waxaa gelinaysaa expire date-kii daawadan waqtigii dhacaysay tusaalehaan waxaan leeyahay 2023 bisha koowaad koodeeda ayuu dhacayaa halkaan ayaan haddana ka dooranaya waxaan leeyahay 2024 bisha koowaad koodeeda ayay dhacaysaa marka waqtigii dhacaysa markaan geliyo qaybtan hoose ayaan imaanaya oo ah haddii discount lagu sameeyey oo kale inta badan muhiim ah waa ka tegi kartaa tusaalahaan qiimo go-an haddii lagu sameeyey 800 ba laga rabay $100 discountna lagu sameeyey waa qiimo go-an muxuu ku saarayaa 700 laakiin haddii boqolley lagu dhaafay percentage oo kale waxaa lagu dhaafay 5% oo kale $40 buu ku saarayaa lagu dhaafay 760 ba laga rabaa marka hadda qiimo go-an bay dhaafeen aniga oo ah $100 saas ayaan kusoo geliyay kadib waxaa imaanaya halkaan ay ku qoran tahay additional shipping charge oo ah lacagta siyaadada ah oo maaragtay alaabta lagugu soo qaaday ama xamaalka ama safarka loo soo saaray tusaalahaan $50 oo kale oo ku baxda kharash oo ka dhigay $750 kadib waan dhaafayaa qaanadana hoose imaanaya marka haddii lacagtii alaabtaan aan kusoo gatay ay cash tahay oon bixiyey halkaan ayaan lacagta gelinaya haddii ay deyn tahayna sideedaan u deynaya kadib safe aan dhahayaa marka waxaan leeyahay lacagtii waan bixiyey oo kale totalka laga rabaa 750 marka totalka laga rabo halkaan ayaad ka arkaysaa marka hadda doorto halkaan 0 kaaga dhigayaa haddii lacagta qayb bixisay oo kale 700 oo kale bixisay halkaan timaadeed wuxuu ku tusay inta kugu dhiman oo $50 ah marka waxaan leeyahay $750 baan bixiyey halkaan waxaan dooranayaa date-ka aan lacagtaas waxa weeye bixiyey iyo akoonkan ka saaray golis oo kale aan ka saaray kadib safe aan dhahayaa
lacagtaasi sidaas ayay kugu soo galaysaa meesha barjayskiisaas kugu soo galay marka hadda soo galayna wuxuuna keenay khaanadii ay ku jireen barjaysadii aan sameynay ama list barjays marka halkan ay kugu soo taxmayaa midka rabtid baad ku dhufanaysaa waa fiirinaysaa haddii lacagta bixinaysid noo dooranaysaa haddii wax ka bedelaysid dhid baa dhahaysaa iyo wixii lamid ah taan kan oo kale deynta oo kale haddaa rabtid inaad bixisid action baa dhahaysaa kadib waxaa dhahaysaa add payment ama dhuudana ku dhufanaysaa lacagtii baad gelinaysaa halkaas waxaa weeye akoonka ka saartay kadib saas ku baxaysaa sidoo kale haddii aad barjaysyo badan isticmaashay oo kale waxaad fiirin kartaa isbuucla iyo maalinla u fiirin kartaa tusaalaan today barjayskan sameynaa fiirinayna maanta wax barjays sameynay sameyn okay bishii lasoo dhaafay waxaan leenahay barjayskan sameeyey ii fiiri inooguma jirto bishaan oo kale fiiri bishaan oo kale intaas barjays baan sameynay oo ku tusayaa sidoo kale supplierada waa fiirin karaa qof walba waxaan kasoo gatay altoba oo kale waxyaabahan kasoo gatay waa labadan midna waan bixiyey midna way igu leeyihiin marka qaab fudud ayaa arki kartaa iyo wixii lamid ah guud ahaan qaybta barjayska intaasaan uga baxayaa waxaan filayaa inaad fahanteen haddii ay jiraan waxyaabaad fahmi weydaan waa soo weydiin doonto insha allah